kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar oo aanu la yeelanay musharax Suldaan Jaamac Nuux oo kamid ah musharaxiinta u tartameysa golaha deegaanka ee degmada Burco. Suldaan ku soo dhaw telefishinka Somali Channel. waan ku dhawahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Shaybe iyo Somali Channel waa mahadsantii. Suldaan marka ugu horeysa waxaad nooga warantaa taariikh nololeedkaaga gaarka. Suldaan Jaamac wuxuu ku dhashay Burco galadan ku dhashay 1980kii dugsiga hoose waxa ka bilaabay maxadka Jamaal Cabdi Naasir dugsiga dhexe qayb kamid ah waxaan ku dhigtay Hargeysa Sheekh Bashiir inta kadibna wixii ka dambeysay Ingiriiska ayaan college ku dhameeyay jaamacadda ku dhameeyay in badan deganaa ka shaqeynayay marka waa waxbarashadeeda waxaan bartay jaamacadda waxaan ku bartay oil and gas management. waxaad u sharaxan tahay golaha deegaanka ee degmada Burco sida boorarka aad magaalada ku soo dhigtay iyo campaign-kaaga waxaad mar walba carabka ku adkaysaa in aad u sharaxan tahay maayirka wayna ognahay maayirka waxa iska dhex doorto xildhibaanada waxa kugu kalifay waqtigan iyadoo campaign-ka lagu jiro in aad maayir ku ololeyso inaad maayir u sharaxan saddex ujeedaan ka lahaa ujeedada koobaad waxa weeyaan dadka u tartamada jaraala maayirka dadka reer Burco ma arkaan lama sii kulmaano ballanqaad kama helaano xildhibaano bay soo saaraan xildhibaanaduna maayir bay u dhiibaan marka anigu waxaan jecelahay anigu xildhibaanada hadhow tan ka dhex tartami doono insha Allah ay tahay higsiga ka tahay in halka insha Allah aan ka dhex tartami doono haddana in bulshada isbaro laba waxa kale ku tala galay in bulshadu ogaato qofkaan ahay dad maayir doonayso waxa ku imanaysa in lagu baaro waa kuma Suldaan muxuu qabtay muxuu qaban karaa maxaa ku kalifay boqolkaas su'aalood baa la weydiinaya taasaa keentay inaan anigu runtii si soo qadimo ugu weyn ujeedada ugu weyn aan kala haana runtii xaqiiqada aan doonayay inaan tijaabiyana waxa weeyaan future-ka in maayirada caasimadaha Soomaaliland lixda gobol ee waaweyn toddobada degmo ayga ah in direct elected wax la yiraahdo si toos ah loo dooran karo taa maxaa sababa qofka loo dooranayo sida tooska ah uu ka duwanaanayo qof 13 qof ay iska doorteen ama 12 qof ay iska doorteen uu ka duwanaanayo waa qof la tijaabiyay waa qof kalsooni dad badan ka helay waa cod badan ku soo baxay si madaxweynaha kale u tartamayo ayuu baad loo tartami lahaa marka magaalooyinkana qof waxay heli lahaayeen aqoon leh karti leh magaalada oo dhan ma garanaysaa isku wadi kara ay heli lahaayeen isaguna si wuxuu shaqeyn lahaa mas'uuliyadda la saaray ayuu si badan gudan lahaa waa 13 qof baadiga ku maamulaya doonaan habeenkii bay shirayaan oo ku ridaya marka bar walba qancinta shacabka maayirada iminka jooga dhibaatada haysta weyn qancinta shacabka waxa kaga horeysa qancinta xildhibaanka awoodda uu leeyahay inuu rido marka anigu waxaan jeclaan lahaa taana inaan awoodda ku saaray in dadka Somaliland iyo gobolada aygahay ay doortaan maayirkooda si toos ah mandate-ka ay siyaana uu ku shaqeeyo 5 sanadood isagoo cidna ka amranayn fuliya wuxuu dadka ballan qaaday waxa laga yaabaa 3 xisbi ama 4 xisbi ama 5 xisbi urur baa marka golaha deegaanka la furo ku tartama marka nin walba maayir buu soo saaray Soomaa kaas ugu muhiimsan inuu soo baxo dabadeetana codka la siiyo waxaad tahay aad ka mid tahay qurba joogta Somaliland bad ka mid ahayd muddo maxaad isleedahay way kaaga horeeyaan gobolkii Togdheer oo bulshada Burco wad ugu mana sheegan kartaa wad u qabatay bulshadii oo imika kaaga soo horeeyay leedahay igu doorta maayir ahaan waxay igu doorataan tiin reer Burco inaan gobolka ka shaqeeyay si weyn jaamacadda Burco dadkii aasaasay baan kamid ahaa ka shaqeeyay waxbayna u dhaxay faraasiga uu sameeyay imi 2008 oo dhan sanad dhan baan ka shaqeynay jaamacadda voluntary aan $1 laga sii aan qayb dhan ka shaqeynayo aan barnaamijyo la fuliyay isbitaalka Maandhaye qaybta dadka waaweyn
urur dhalinyarado aan ka mid ahaa oo xogeyihiisa ahaa in badan ayaanu ku samaynay marka waxaan ka mid ahaa dadkii cusbitaalka dhimirka ee magaalada Burco aasaasay ee dhisay ee ka shaqeeyay waxaan ka mid ahaa bridge-ka labaad ee Burco dadkii lacagta u soo ururiyay geedka weyn ee airport ku weerarsan wadada ceerigaaba qabata wax iskuulo midda kalena hantida danta guud anu waxaan aaminsanahay in gobolka wax qabadka aan sheegayaan leeyahay soo bandhigaya dhulku u baahnaa inaan Burcaba ku oolin maanta sidaas darteed iska daa midaan si iibiye waxaan ku tala jiraa insha Allah inaan wax badan oo dhaqaalaha dawladda hoose ah aan dadka hantidooda gaarka ugu iibiyo si aan meel kubad uga sameeyo si aan kubadii kolayga u sameeyo si aan kubadii cagta meel dhalinyarada ay ku ciyaarto kubadda uga sameeyo xanaanooyin badan si loo sameeyo waa dhulka hantida dadka weynaha looga iibiya marka waxaan anigu aaminsanahay maba taale iminka hantiyaan meel aan ku cunaa far badan ma taale inaanu hantida dadku ay leeyihiin dawladda u iibinaa baan anigu taasaba ay qorshaysan wax badan baan ka fikiraya magaaladan waxay ku kabacday iyadoo nidaam badan oo dawladeed aanu jirin dadkeena qurbaha joogay kuweena gudaha joogaa waddanka dhistay si qorshaysan looma dhisin qof waliba intii uu helay buu iska dhista adduunyadana de planning baa lagu dhisaa marka daar meel laga dhisayo biyaheeda leydhkeeda maxaa la yiraahdaa drainage-keedii qashku ka baxayay waxaasoo dhan qorshay ku jiraan ilaa waxaasoo dhan la qorsheeyaa meelba lama sameeyo wax badan qorshaha isbedelkaan doonayna in sameeyno runtii bulshadeena maadaama ay adduunyada soo arag caqabado badan bay ku noqonaysaa marka jiingada lagu yiraahdo wadadii baad xidhay ka qaad ma aqbalayo way ku adkaanaysaa in isaga loo dalayo mooday inay meesha dariiq umaday tahay oo boqol qof ka faa'iideyso ma garanayo marka runtii aniga waxay ugu jirta qorshaha wacyigelintu waa qayb baraarujintu waa qayb la tashigu waa qayb fulintu waa inay noqotaa stage-ka ugu dambeeya boqol waxoo ka horeeya la sameeyo si nidaam loo bedelo haddaan qof meel laga qaadayo ama meel magarasha wadda laga banaynayo waa in dadka la tashadaa waa in dadka loo sheegaa waa in dadka loo yeedhaa laga warramaa si waddadu ekaan si waxa faa'iido ugu jirto processka markay marto marka dambana waa in fulintii timaada qofka markaa diida isagoo awood shakhsiyeed ku isticmaala de markaana dawlad baa joogtay waxa weeye awooddii dawladeed baa loo isticmaalay laakiin waxaa had iyo jeer la dhacda in qofku awoodda iyo fulinta soo horeysiiyaan hadday ka dhacdaa marka waxaan ilaalin doonaa insha Allah maadaama qof nidaam iyo dawlad ka yimi waddan ay ka jirto in processka uu wanaagsanaado sida saxdaana loo maro aad baad mahadsan thank you very much thank you daawadayaal intaa waxay nagaga waraysi gaar ah oo aanu la yeelanay musharax Suldaan Jaamac Nuux oo kamid ah musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada Burco musharaxu aad buu ugu mahadsan yahay sidii waqtigiisa qaaliga noogu soo horay intaynu barnaamij la mid ah ku kulmayno waxaan kaga taginaa sidaas iyo salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh